laba su'aalood mid waxa weeyaan dadka qurbaha jooga maxaad kula talinaysaa sheekh ayaa leeyahay midda kale waxaa leedahay xagee saaxada caalamka uga jiraan ahlu sunna wal jamaaca oo aad tahay ra'iiskooda bismillaahi raxmaani raxiim waxa weeye horta waxaan hormarinayaa midda ahlu sunna wal jamaaca siday u kala muhiimsan yihiin baa loo hormariyaa ahlu sunna wal jamaaca waxay ku jireen saaxada azmaantii islaamku soo maray ama ummadda soomaaliyeed soo martay oo dhan ayay ku jireen haddii la yidhaahdo dhinaca dagaalka gaalada lagala dagaalo laga saaro dalka islaamka haddii la yidhaahdo isticmaarka iska kicintiisa ahlu sunna wal jamaaca ahlu dariiqa taariikh bay ku leeyihiin cid kule taariikhda ay ku leeyihiin oo kalena maba jirtaba waxaad ka garanaysaan imaam axmed gurey baa ka mid ahaa ahlu dariiqu ahaa maxamed cabdilla xasan baa ka mid ahaa ahlu dariiqu ahaa sheekh xasan barsane ayaa ka mid ahaa ahlu dariiqu ahaa ilaa sheekh uways iyo laga soo gaaro kulligood jihaadka raggii geli jiray gaalada la dagaali jiray weligoodna qof muslina aan waxay ka keenin bay ahaayeen xorriyaddii xataa haddeer soomaaliya rag culimo ah baa u horreeyey oo qaa'id u ahaa weliba waxay ku wada socdeen oo awal jiri jirtay ninka culimada ahi hadduu ku jiro guddi kasta guddigaasi wixii uu u tilmaamo ninkaas sheekh ahi bay raaci jireen waxaa kaloo dawrkoodu ahaa inay ummadda xaqa u sheegaan inay waxbaraan inay tarbiyeeyaan waxaa dawrkoodu uu ahaa inay markii qofku uu shareecada islaamka barto inay tarbiyo geliyaan inay dariiqa siiyaan inay markaa kabacdi uu qofku maqaam gaaro labadoodu waa kala ratibmaan shareecada islaamku waa ma'muuraadka la farsoomo iyo manhiyaadkoo laga dheeraado shareecada islaamkaa la yidhaahdaa shariica weeye in la baro qofka culimada ayay ahayd mihnadooda ilaa haddana sidii bay u hayaan waxaa ku xigta dariiqa macnaheedu waxaa weeye ixtiyaadi waxa la yidhaahdo ziyaado ah iyo dadaal dheeraad ah oo shaygii shaki yari ku jiroo dhan laga tago oo shareecada daahirkeedu uu kuu ogol yahay sidii hadda aan sheegaynay oo sayid cumar uu u yidhi kunnaa natruk tiscata acshaari alxalaal buur makhaafata an naqaca fi lxaraam waxaan uga tegi jirnuu yidhi 90% xalaasha waan ka tegi jirno waa iska dayn jirnuu yidhi inaan ku dhacno xaaraamka cabsashadeed daraaddeed dadaalkaas weeye dariiqa macnaheedu sidaas weeye inaad ku dadaasho meel khilaaf yari ku jiroba inaad ka fogaatood ka baxdo oo aad ku camal fasho meeshii la yidhaahdo intaasaa shuruud u ah aad shuruuddaas raadisood ku camal fasho wixii khilaafi oo dhan inaad ka baxdo haddii aad shakiso shakigaba inaad iska dayso meeshaad istiraado ma daahir baa mase ma ahan shareecada daahirkeedu haddaadan najaaso ku ogeyn waa kuu ogoshahay laakiin dariiqadu waxay ku leedahay dadaal sameeyo midaad hubto ku tuko dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibuka oo aad bay ku leeyihiin intaasay culimmadu bari jireen markaa kadibna waxaa laga gaari jiray xaqiiqaa la gaari jiray su'aalaha aad su'aalaysaan oo idil baa laga heli jiray tajalli ah oo qofku uu markaas uu arko nuurkii helo oo uu maqiibaad ilaahay tusiyo oo markaa kadib uu ogaado ilaahay uu ku xirmo oo qalbigiisa uu ilaahay ka arkayo daaco kasta uu samaynayo culimada horta dawrkoodu kaasuu ahaa haddana sidii bay u hayaan al'aana waxaa jira dawr hadda cusub oo la yidhaahdo dhibaatada soomaaliya ka jidha xaggee culimmadu kaga jidha dhibaatada maanta soomaaliya ka jidhaay waxaa weeye dhibaato xaqiiqda markii la yidhaahdo dawrka culimmadu
si uu u qaataa ay adag tahay oo dhib badan tahay maca daalikana kama baxsana waxay ku adag tahay sidaad haddaba su'aalayseen oo kale dad muslimiin ah oo dhiiggoodii la bannaysanayo oo la leeyahay waa shareecadii islaamka oo la dilayo oo la dhacahayo oo dhulkoodii la baabi'inayo haddii ay arrintu noocaas u dhacdo culimmadu baab ay runtii dhexgeli karto ma ahan meel adag bay ku jirtaa waxaa culimmada dowrkoodu yahay in ummadda soomaaliyeed laysu keeno in la heshiisiiyo in dib u heshiisiin rasmiya la qabto in loo jeediyo ummadda in ay qolada bannaysanaysa dhiigga islaamkuna joojiyaan kuwa kaleeto oo iyaguna cadaalad xumada iyo dulmiga samaynayaana joojiyaan dil inuusan bannaanaynna ummadda loo sheego isku fikradna la noqdo markaasna ixtilaalkii dalka ku jira isku jiha looga soo wada jeesto oo markaa weji wanaagsan loo dhaqaaqo intaasaa culimmadu ay fikrigoodu uu yahay waana ku shaqaynayaan waana la wadaa inta ka dhimanna inaan buuxino ayaan rabnaa haddii ilaahay qadaro dowrkoodu sidaas weeye laakiin dhex orodka hadda maanta ahaa wuxuu u baahan yahay meel gaaladiina qoryo sidato oo dagaalamayso dadkii kalena qoryo sitoo dagaalamayo qof walibana mid walibana uu leeyahay midka kale agtiisa kii istaaga uu dhiiggiisa bannaysanayo waxaa ka muuqata fasaad weyn baa ka muuqda fasaadkaa marka mid culimmadu ay runtii inta u bareerto diin ahaan ugu bareeri karto ma ahan cabsi ma ahan ka haysa runtii laakiin waxa weeye ka diin ahaan baysan ahayn wax loo bareeri karo oo culimmadu waxay rabaan ummadda kalaa ku dayanaysa iqtidaa yaa laga rabaa haddii dadku kugu dayanayo haddaad adigu dhiig xaaraam a gasho oo aad dadka dhiiggiisa bannaysato ummaddii kugu dayanaysana mas-uul baad ka tahay ilaahay hortiisa ayaguna dhiig xaaraam ay gelayaan ummadday bannaysanayaan dhiiggooda ayagoo ku ridoobahaya weliba marka culimmada dowrkeedu waxa weeye hadda in laysu raadiyo horeyna waa u bilaabeen haddana waa ku dhex jiraan waana la dhammaystirayaa haddii ilaahay qadaro in ummadda la heshiisiiyo si ay hal jiha uga soo wada jeestaan cadow ka koreeyaana markaa soo geli mayo ciddii dulmi samaynaysana shacbi ahaan baa laysaga celin karayaa dowrkoodu noocaas weeye tacliimtii iyo waxbaridii iyo thaqaafadii iyo diintiina sidii bay u wadaan middaan hadda casriga ah oo cusubna waa bilaabnay oo waa wadnaayo ayadana meel fiican bay noo maraysaayoo dad jaamiciyiina iyo dad ayaa hadda mar dhow noo soo baxaya haddii ilaahay qadaro iyo madaaris badan oo aan furnay ayaa dad badani ka soo baxaya marka caqiidadooduna toostay mihnadooduna toostay kuwaas oo aan rabno inaad adinkuna aad dowrkiina ka qaadataan oo aad wuxu aad leedihiin baa meel mari kare culammadu waxay ku shaqayn lahayd waxay tahay haddii dhaqaalaha dibadaha lagu hayo si fiican inta wax loogu qabto labada qof oo inta loo dhiibo jeebka ku shubanaysa laga daayo culimmada waaweyn oo la yaqaano loo dhiibo culimmadu dalkana waa dejinaysaa diinta islaamkana waa faafinaysaa ummaddana hanuun bay u horseedaysaa laakiin haddii dhaqaalaha jeebka looga shubto oo dad kaleeto oo yar yara inta laysaga dhiibo ay siday doonaan u tasarrufaan waxaan ka baqayaa in xoogaa meesha adinka laftiinnu wax uun ay idinka soo gaaraan waxaan idiin soo jeedinayaa oon idinkula talinayaa horta marka koowaad in aad ilaahay diintiisa qabsataan fiqradii ugu dambaysay weeyoon ka jawaabayo inaad ilaahay diintiisa qabsataan inaad ogaataan ummadda soomaaliyeed saakay ma islaamin islaam bay ahayd weligood intaan nabiga calayhi salaatu wasalaam uusan madiina tegin oo aan islaamku gaarin buu soomaaliya soo gaaray intaasaa la gaarsiiyey waxay ahayd soomaaliya dalka keliya oo ugu aqoonta badan xagga xifdiga qur'aanka ilaahay oo kariimka ah waxay ahaayeen dalka keliya oo aan laga helin hal qof oo gaal ah oo gaalnimo sheegan kara fadligaasna ilaahay baa lahaa asagaan uga shukrinaynaa laakiin culimadaa iyaguna qayb ku lahaa oo gaarsiiyey meel walba afrika iyagaa gaarsiiyey adaawad baa hadda marka ka soo baxday gaaladu ay kula dagaalayso
oo ay leedahay waa shuclad ku baxaysa Afrika oo islaaminaysa marka culimadu waxay diyaar u yihiin in ay islaamka sidii loo faafin jiray weliba lagu sii daro wax hor Allah oo si fiican loo faafiyo madaaris loo furo tacliimtiisii la bixiyo mihanka la baro dad wanaagsan laga soo saaro culimadu sidaas ayay ku shaqaynaysaa waxaan marka idin kula talinayaa inaad culimadiina ku xirantaan oo aad ayaga dhaqaale haddaad bixinaysaan u soo gudbisaan wixii maslaxada dalka ah ayaga yaqaana wax qof muslimi bixiyay oo ugu talagalay in dalkiisa iyo dadka dhibaataysan wax loogu qabto in ay xaraam tahay in qof isticmaalo ayaga yaqaana ayaga diintii aan qaa'idka ah ayaga u soo gudbiya dalkuna markaas u xasilaya markaasaana wax la gaaraya haddii kale waxay noqonaysaa shilinkii aad bixisaani mid dadka lagu dilo mid qof walba lagu gudo mid qofba qofku naco uu ku dilo markaasna adinku aad nasiib ku yeelataan oo la yiraahdo qofkii lacagta bixiyay qayb buu ku leeyahay ilaa la dadka inta la siiyo mid faajiraha la leeyahay orod soo dil dadka qof tawxiidaha ayuu dilaya waad ogtihiin masaajida dhexdeeda dadkii lagu laayay masaajid ruux ku jira iyo markuu ka soo baxo ruux la dilayo goorma la nabadgelinaya islaamka ogolisa xagee jooga المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده sidaas yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam muslim waa qofkii gacantiisa iyo afkiisa muslimiintu ka nabad gasho masaajidka dhexdiisa qofka ku dilaya qofka markuu ka soo baxo ku dilaya qofka dugsida quraanka dhexdooda ku dilaya markaas la oran karaa waa dariiq islaami miya la oran karaa lama oran karo magacyada hadda la bixiyo oo jamaaca islaamiya iyo la yiraahdo qalad weyn baa ku jira dadku islaam weeye kulligiis Soomaaliya kulligeed waa wada muslim kitaabka Ilaahay horay bay u haysteen haddana waa haystaan cidii wax ku kordhinaysa dhibaatada ku dhex jirta iyo fidnada in laga shaqeeyo nabad looga shaqeeyo waxa dilka la yiraahdana la mamnuuco oo la joojiyo ha ku shaqeeyeen haddii cid ku shaqaynaysa la waayana waxaan idin kula talinayaa inaad dhaqaalaha leedihiin culimada aad u soo gudbisaan culimaduna waxay ballan qaadayaan inay dalka nabadiisa raadiyaan mar hadday dhaqaale u haystaan oo ay safri karaan oo meel tagi karaan oo adduunka ay la hadli karaan oo ay dadka laftiisa qofkii dhib ku haya inta wax siiyaan ka diri karaan oo ay shiraan u qaban karaan ummadoo dhan waa hanuuninaya waana hanuunin lahaayeen laakiin haddaysan ba heli karin inay 10 qof isu keenaan eed qaban kartaa meesha kama muuqato dad aan ahal u ahaynina oo 200,000 300,000 iyo 1 milyan maalin walba wado waxaad moodaa in halkaas wax ka soo bixi doonaan inaad dibna u xisaabtantaan aadna ka qayb qaadataan wixii dalka dejintiisa ah hadaan nabad laga helin dalka oo aan dadka la heshiisiin cid lala dagaali karaana ma jirto gaalana la iska kama kicin karo wax la gaari karaana ma jiraan in dadka la heshiisiya u horeysa haddii fikrad qabiil lagu dagaalo iyo haddii fikrad firqa lagu dagaalana waa isku macna maxaa yeelay waxaan uun qabiilka ahayna hal la dilo weeye macnaheedu wixii aan firqadaan ahayna hal la dilo hadda taasi labadaasi wax islaamaana lama arko culimadu firqana ma ahan qabiilna ma ahan xaasha lillah waa culamaa islaam waana u taagan yihiin dadkoo dhanina waa dadkoodii xirtoodii weeye waa dadkay wax bareen qofkii ku caasiyoobay isagaa yaqaana laakiin qof sheegan kara aqoon baan leeyahay oo aan madrasadooda ka soo bixin ma jiro marka waxay u baahan yihiin taageero dibadeed bay u baahan yihiin iyo daakhil taageeradaas inaad ugu deeqdaan ayaan idin soo jeedinayaa hadee hadalkana waa idinku dheereeyay intaasaan soo jeedinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh